الرحمن الرحيم marka ugu horeyn waxaan salaamayaa ama u mahadcelinaynaa warbaahinta Dalman Media oo si gaar ah nolol shaqeysa waliba raadiyo kalkayo raadiyihii dawladdu ay lahayd bacdal salaan sidoo kale waxaan nagana halkan ka salaamaynaa dhammaan ciidanka booliska gobolka Mudug ee ciidamada daraawiishta aan ugu xoogsan oo nala shaqeynayay ciidanka BMBF iyo hay'adda sirdoonka oo bisa oo iyaguna shaqo fiican la qabatay bacdal salaan waxaan rabaa inaan saaka ka warbixino in muddadii aan shaqeynay oo 5 bilood ahayd wixii noo qabsoomay iyo waxa noo dhiman oo aan rajaynayno in aan muddada soo socoto ka qabanno gobolka Mudug markii aan halkaan nimid waxay ahayd xaaladda gobolku mid aad u mataqaana amnigiisa hooseeyo meelo badan ay al-shabaab dadku ku leenayaan khamridu ay antara dhaaf tahay dilalka dadka caadiga iska socdo shilalka baabuurta ay badan yihiin wuxuuna ahaa gobolka ugu dambiyada badan gobolada Puntland oo dhan waxa ilaahay maadi ah in bishii hore uu noqday gobolka labaad oo ugu dambiyada yar waxa ka dambeeyay yaraaday oo kaliya gobolka Highland la yiraahdo dhacdooyinka waaweyn waxa ka dhacay bishii hore 3 dhacdo kaliya gobolka oo dhan wax kufsiga wuxuu ka ahaa eber shilalka baabuurku waxay ahaayeen eber haddii la koreeyay xitaa mobil furashada iyo kiisaska iska yaryar iyo tuugada baa yaraaday marka 80% dambiyadii ka dhacay waaga marka la barbar dhigo buu hoos u dhaceen wax toogasho ah oo dil ah oo qorsheysan ka badhicin gobolka muddadii aan joognay oo al-shabaab iyo argagixisada la xiriira marka laga reebo dad la yaqaano oo sida kiiskii maalintii wada dhacay oo aana qabiil iyo waxyaalo noocaas askari xoogaa madax laga jira uu sameeyay iyo dilkii loo geystay askarigii shaqada ku jiray daraawiishta degmada Galdago baadiyeeda muddadii aan joognay waxaan kala bilownay oo dib u habeyn ku sameynay ciidanka booliska gobolka Mudug oo 3 meelood meel xaaladda laga saaray inagoo u aragnay dadkaas inaysan ku haboonaan shaqada booliska lana hawlgeliyay dad aqoon leh oo dhalinyaro ah oo qaarna ay tababar haddana ku jiraan oo sabtida uu xirmayo qaarna xarfa ay ku diyaarsan yihiin oo ay tababar gali doonaan wiilka soo socda dib u habeynta boolisku intay socoto waxaan la shaqeyn doonaa ciidamadan nala shaqeynaya waxaan rajaynaynaa 3 bilood ka bacdi in ciidan boolis oo qurux badan oo tababaran oo logistics haysta mushaar fiican hela aanu hawlgelino oo ku filaada gobolka waxaan rabnaa oo kale in aan muddadii aan joognay noo qabsoomay dakhliga gobolka maadaama ciidanka booliska ay u xilsaaran yihiin inay soo saaraan dakhliga in muddadii aan shaqeynay uu kor u kac fiican sameeyay oo 20% dakhliga uu kor u kacay gobolka xitaa markii ay xiraayeen garoomada oo coronavirus ku jiray uu dakhliga gobolka Mudug gobolka kaliya uu kor u kacay uu yahay waxaan sameynay markii ugu horeysay laga bilaabay dakhli ururin degmooyinka Jariiban Bursaalax iyo Galdago oo aan weligeed laga sameyn waxaan sidoo kale Jariiban ka dhacday degmada Jariiban oo degmada u ballaaran oo ka dhuntay ay in intay xukuntay lagu qasbo in degmada laga xukumo dhulkii dawladda oo markii dawladda burburay la qabsaday oo guriyihii sharci darrada loo haystay aan dib u soo celinay dhulkii dekada loo asteeyay oo dabdib u calaamadsadeen aan burburinay dhulkii xoolo daaqinta loo asteeyay ee deegaanka Garaacad aan dib u soo celinay waxa noo qabsoomay muddadii aan gobolka joognay oo shaqeynay xerada kabista oo ahayd meelaha dhibaatada ugu weyn ay ka jirtay oo dawladdii hore ay iibisay dadweynihii laga iibiyana gacantooda galin oo ay fusuq badan iyo fasahaad badan halka ka jireen dib u soo celinay
runtii waxaan qiraynaa in shaqooyin badan ay noo qabsoomeen. shaqadaas inta ugu muhiimsanna ay lahaayeen dadweynaha gobolka oo diyaar u ahaa inay dowladda kala shaqeeyaan arrintaa, khaasatan ciidanka booliska si hagar la'aana ula shaqeeyay naf iyo maalba. waxaa kaloo iyana xusid mudan warbaahinta gobolka oo iyaduna si hagar la'aana ula howlgashay. waxaan rabaa inaan qiro in dadka dadweynaha gobolka Mudug, maadaama aniga gobolka laga soo bedelay, ay yihiin sabab dad awood badan oo karti badan oo dhinac kasta ku awood ku leh, mid ciidan, mid bulsho, mid dhaqaale, intaba mid siyaasadeed leh oo qaangaar ah, laakiin meel khatar badan ku nool oo xuduud ah oo waxyaalo badan ay ka suurtageli karaan. tusaale dhinaca Itoobiya oo ay ka yimaadaan daraagis foolxun aad u tiro badan, dhinaca koonfurta oo al-shabaab iyo waxyaalo kale iyo xashiishadii iyana ay ka timaado, dhinaca badda oo iyada laftigeeda difaac laga jiro lisleeyahay al-shabaab iyo waxyaalo kale iyo burcad badeed iyo waxbaa ka iman kara. haddana waa dad adag oo halkaa ku nool. runtii waxaan rabnaa inaan u ballan qaadno in dhowaan aan isku fillaan doono, in saldhigyadii booliska oo burbursanaa dib loo dhisi doono, in 4 saldhigoo cusub degmooyinka iyo degmada Gaalkacyo ku jidho iyo Saaxo iyo Tawfiiq iyo Galdagob laga howlgeliyo casriya. dhowaanna in la dhisi doono 3 saldhig oo waaweyn oo kale ah oo saldhig buuxa ah iyo 4 rugo boolis oo hor leh. waxaa laga dhisi doonaa saldhigyada Bursaalax iyo degmada Gaalkacyo oo 2 saldhig oo waaweyn laga dhigayo, rugaha oo laga dhisi doono Balebusle, Cagaaran, Xero Jaalle iyo meesha la yiraahdo Seemade oo iyadana rug boolis laga dhisi doono. insha Allah tacaala waxaan gobolka ku soo siyaadinaynaa baro control oo cusub oo ay ka mid yihiin Bayra oo iyadana custom cashuureed iyo control baaris iyo rug boolis laga dhigi isugu jira laga dhigi doono, Dar es Salaam oo custom cashuureed la dhigi doono iyo rug boolis. barahaas waxaa kaloo jeexdin meesha la yiraahdo iyadana custom cashuureed iyo control baaris iyo rug boolis laga hirgelin doono. waxyaalahaas waxaa iyana barbar socdo in laamihii booliska oo la rabay in ay shaqeeyaan sida CID-da iyo traafikada iyo turbataariyada oo kulligood shaqo gaara oo boolis leh, in iyadana dhalinyaro badan oo 40 ah oo aqoon leh tababar loo diray qaybna la wado hadda si wax looga bedelo hanaankoodii shaqo una noqdaan kuwa shaqadooda ku filan. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ka hadlo in kiisaskii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka. wallahi isbedelada waxa sabab u ahaa biseylka wararta waxa ugu weyn oo sabab ah waxa way biseylka bulshada gobolka oo garowsatay in sidan aysan wax ku socon karin, iyagoo raalli ka noqday in shaqada dawladdu ay qabato kuna taageeray madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo iyagoo laftigoodu si hagar la'aan gobolka uga howlgalay oo awood siyaada ku soo kordhiyay iyo isbedelka lagu sameeyay booliska oo inta xumayd laga saaray oo la kala hufay oo inta nadiifka lagu soo reebay. waxyaalahaas baan filaynaa inay qayb ka qaateen. dhinaca shaqeynta booliska iyo shacabka aad bay u fiicnayd muddadii aan joognay, si fiican bay noola shaqeeyeen. kuwa xaafadaha degmooyinka xitaa bannaanka magaalada caasimadda ah ka ah xitaa way nala shaqeeyeen. howlgalladeena way ka faa'iidaysteen kulligood si isku mid ah. ma jiraan wax caqabado ah oo soo xusay? wallahi wax caqabado oo la sheego ma jirin. shaqadayada si fiican baa u gudanay. marmar way dhacday caqabado mataqaanaa shilal shaqada ka yimid oo dagaalo iyo dhimasho dhaawac iyo waxaas oo sababay oo saraakiil ku dhimatay, laakiin alcumuum markasta wadada ku soconay waxay ahayd mid noo qorshaysnayd waan ka leexan karin. marka waxaad warbixin naga siisaa waxaa jira nin dhawaan ciidamada garaawishta Puntland ka tirsanaayo dad shacab ah ku laayay magaalada Gaalkacyo. wararka waxay sheegayaan in ninka gacanta lagu soo dhigay, bal ninka dadweynaha ka kasii hawshiisa ninka waa jira isbitooraha oo dad
shacaba waxa ku laayay qaybna dilay qaybna dhaawacay magaalada Gaalkacyo oo faxsaday waxa uu soo galay gacantayada anaga ninkaas waa nagu soo wareey anaga gacantayda ku hayna waxaana qaybta ugu muhiimsan ka qaatay eheladiisa oo garab naga sii fiican oo ninka gacanta booliska inuu soo galo kala shaqeeyay waan ugu mahadcelinaa insha Allah maya wax isku caabin ah oo dagaal ah oo kala kulanay ma jiro waayo ninka anaga waa noo keenay iyagoo la wado isku daygani wuu socday in ciidan badan ay ceyrsadeen laakiin muddo markay aanu xal weynay dadka eheladiisa aan la kulanay iyagana noo ballan qaaday inay nagu soo ninka soo qaban doonaan sidii bayna sameeyeen way soo qabteen iyagoo gaari ka wada bayna noo keenay gacantayda ku jira waxaa maalmaha shalay iyo arkayay websaytyo iyo wax saas qoraya in aanu warbixin siiyay oo sheegay dagaal inuu dhacay askar naga dhaawacantay waxaan rabaa inaan dadka u cadday in waxaas been yihiin cid aan waraysi siiyana aysan jirin maantana noo keenay ninkaas oo gacantayda soo galay laakiin ka hor uusan nooba imaan dhinaca kale taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal maalin mar wuxuu sheegay gaarinin ku labisan tuutaha ciidamada ka soo dhacay magaalada Garowe in magaalada Gaalkacyo ku qabtay gaariga maxaa xaq ka haysan gaarigaas iyo mid eedaysana ka mid ah raggii soo dhacay oo watay markaa oo waliba sita tuutihii iyo qorigii ku soo dhacay waanu qabanay gacanteedana ku jira waxaa sidoo kale baxsad ah oo aan weli gacanteena soo gelin ninkii labaad oo la socday oo isaguna ku dhuumaalaysanaya gobolkan Mudug degmooyinkiisa laakiin aan heli doono waana ku wareejinaa waxaan u gudbin doonaa meeshii booliskii meeshooda uu ka dhacay kiiska ugu dambeyn waxaan bulshada gobolka Mudug u diraynaa in ay booliska sidii ula shaqeynaysa ka fiican ula shaqeeyaan waxaan kula dardaarmanaa in dhibaatooyin hadday jiraan ama cabasho ciidanka la xiriirta inay noo soo gudbiyaan in markasta ay ogaadaan waxa loo shaqeynaya inay bulshada tahay inaan anagu dan gooniya ka shaqeynayn inaan cid gaar ah la shaqeynayn in aan nabadgelyada qof kasta ilaalinayno hantidooda iyo maalkooda inay markas si wanaagsan noola shaqeeyaan oo wada shaqeyn fiican aan samaysano